رئيس الوزراء حكومة فدرالك دالك الصومالية عبد فارح شردون ساعد ويدنا فريين وزيرك ورفافنت iyo wasiirka xogeenka ayaa xalay gurigiisa waxa uu afar ugu sameeyay qaar ka mid ah madaxda iyo wariyaasha ka howlgala warbaahinta gudaha dalka Soomaaliya رئيس الوزراء عبد فارح شردون ساعد ayaa sheeko la wadaagay saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa xalay gurigiisa uu afarka ugu sameeyay waxaana uu kala sheekaystay wax walba ee saxafiyiintu ay ka qaban karaan isla markaana ay kala qayb qaadan karaan dawladdu dib u dhiska dalka wariyaasha waara kala duwan halkaasi ku soo bandhigay ayaa dhankooda waxa ay u sheegeen ra'iisul wasaaruhu qaabkay u wada shaqeyn karaan waxaana sidoo kale xeerkii dhawaan ay ansixisay xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadanaa xeerka lagu dhaqi doono warbaahinta gudaha dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaana saxafiyiintu ka ogolaaday in qodobo fara badan oo xeerkaasi ku jira isla markaana lid ku ah warbaahinta dalka in wax laga bedeli doono inta aan loo gudbinin baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaana ka codsaday saxafiyiintii xalay afurka gurigiisa uu ugu sameeyay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka dawladuna ay diyaar u tahay inay wada shaqeyn buuxda la yeelato warbaahinta dalka maadaama warbaahintu iyadoo ay tahay mid wacyigelin karta guud ahaan bulshada Soomaaliyeed markii kulanka uu soo gabagaboobay kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay afayeenka xukuumadda federaalka dalka Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabduuli runtii munaasabadan waxay ahayd munaasabad aad iyo aad muhiim u ah oo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid uu kula afurayay qaybaha kala duwan ee warbaahinta tiradii ugu badnayd ee warbaahin ka socota warbaahinta gudaha iyo kuwa dibadda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee dabcan iclaamka ayaa meesha ka soo qayb galay waxaana runtii aan ku tilmaami karaa inuu ahaa kulan labada dhinacba ay isweydaarsanayeen mas'uuliyaadka xilligan saaran guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo sidii mushkiladaha dalka muddo kadib looga saari lahaa iyo gaar ahaan kaalinta uga aadan warbaahinta inay wacyiga guud iyo amniga iyo xasilinta dalka ay qayb ka qaataan waxa kale oo iyana aad iyo aad muhiim u ahayd in warbaahinta muddooyinkan si weyn uga hadlayay sharciga saxaafadda iyada la fahanteeda waxyaabo fara badan oo aragtiya la isweydaarsaday oo contributionka iyo waxyaabaha ay wariyaashu doonayaan ay qayb ka noqon doonto sharciga cusub inta aan la horgeynin baarlamaanka Maxamed Maxamuud Timacade Universal TV Muqdisho.